maantii oo ah 25-ka bisha Abriil 2020 waxaa ka dhacay magaalada Muqdisho banaanbaxyo rabshado wata. Banaanbaxyadu waxa ay soo bilowdeen xalay fiidkii, saakay ay dib u sii bilowdeen. Sababta banaanbaxyadu waxay ahayd bandow dawladdu ay ku dhawaaqday ayaa booliiska oo fulinaya waxa ay dileen 2 ruux oo shacab degmada Boondheere. Ciisad ka dhalatay dilkaas ayaa waxa uu sababay kacdoon banaanbaxyo rabshado wata. Runtii banaanbaxayaashu waxay ahaayeen kuwo aad u qiiraysan, rabshado samaynaya. Banaanbaxayaashaas ayaan ku soo baxnay maantay oo aan kala qayb galnay banaanbaxoodii. Runtii banaanbaxayaasha oo intooda badan ay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed, sida ay noo qadariyeen, loo dhageysteen, ayaan uga mahad celinayaa dhammaantood dhalinyarada Soomaaliyeed ee muujinaya dareenkooda. Mahadnaqaas kadib waan la hadlay, waxaan u sheegay sida aan uga xunnahay ama dawladda Soomaaliya ay uga xun tahay dhacdadaas naxdinta leh oo ay 2 qof oo shacabka ah ay ku naf waayeen. Isla markaas waxaan ka ballan qaadnay qodobo dhowr ah. Qodobadaas aan ka ballan qaadnay waxaa ka mid ahaa gacan ku dhiiglaha dilay 2 ruux oo shacabka ah oo askariga ahaa in la xirayo lana horgeynayo maxkamad cadaalad ah. Halkaasoo aniga iyo oo ku hadlaya magaca maamulka gobolka Banaadir iyo ehelada marxuumyadaba aan la fuuli doono maxkamad si ayaan u fududaan in qof shacab ah la iska dilo. Ballanqaadkaas isaga ah waan bixinay, waana sidii aan u bixinay ayuu u fulaya. Haddii alla idmo, askarigiina waa la xiray, waana maxkamad suge. Tallaabta xigta uga aadan madaxda booliskana kaliya booliska isaga ka hadli doona. Waxa kale oo aan rabaa inaan halkan ka sheego eheladii dadkooda la dilay ayaan la kulannay, si waafi ah oo dhammaystiranna kala hadalnay arrinka. Ayagana si buuxda ayaan isula maalignay wax kasta oo aan isku soo qaadno. Waxaan rabaa oo kale inaan halkan ka sheego dhammaan ballanqaadyadii banaanbaxayaasha aan u soo jeediyey markii aan ula noqday madaxda dawladda Soomaaliya, sidii uu ahaa ballanqaadyadaas ay u aqbaleen. Bulshada Soomaaliyeed ayaana loo soo bandhigi doonaa sida ay u dhaqangalaan haddii alla idmo. Banaanbaxayaasha qodobada ay ka hadlayeen ayaa waxa ay kala ahaayeen inta ugu muhiimsan dhacdada foosha xun oo xalay dhacday iyo doorka uga aadan dawladda oo aan doorkeennii sheegnay kana qaadanayno. Qodobka xiga waxa uu ahaa bandowga aan ku soo beegmin xilliga munaasabka ah oo runtii dadka reer Muqdisho ay dhibsadeen. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa sida dhalinyarada booliska ee jooga barkoontarooladu ay ula dhaqmaan shacabka. Intaba waa ka hadalnay madaxda Soomaalida, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiinta kale hawshaas ay khusayso. Waxaa laga soo saaray go'aano aan rajaynayo in taliyaha booliska oo aan ku soo dhaweyn doono halkan uu ku hadli doono. Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho inaan halkan uga jeediyo baaq ah waa u
uga mahad celinayaa marka hore sida ay dareenkooda u muujiyeen marka xiga waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo dhaliilaha dhaca marka bannaanbaxyo noocaan oo kale ay yimaadaan runtii waxaan raalli ka nahay dadka Soomaaliyeed marka ay wax taxanayaan marka ay waxa ay dhibsadeen ay muujinayaan inay si isu soo bax inay sameeyaan waa arrin wanaagsan waana soo dhaweynayna waxaan runtii aan la aqbali karin aanna doonaynaa inay ka waantoobaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay wax burburiyaan oo waxa ay burburinayaan ay tahay ayagu wixii ay annaga naga dhaxli lahaayeen waxyaabaha ay naga dhaxlayaan qof walba hantidiisa gaarka isaga iskale laakiin waxaa jira hanti dadka ka dhaxaysa hantida dadka ka dhaxaysa waxaa ka mid ah wadooyinka ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah soolarada ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah goobaha taariikhiga ah ayaa ka mid ah goobahaas wadooyinka iyo goobaha taariikhiga ah iyo meelaha loogu talagalay basaska in lagu sugo bulshada loo dhisay waxyaabahaas ayay baabi'iyeen dad wax magarata ah oo ku soo dhex dhuuntay bannaanbaxayaashii rabay inay dareenkooda si nabada u muujiyaan marka la muujinayo dareen cambaarsan xaqiiq jirta oo dadku ay doonayaan inay yacni dowladda Soomaaliya ay u sheegaan waxa ay dhibsadeen doonayaan in laga bedelo mar walba waxaa ku dhex dhuunta oo xashar wadayaal ah oo qariba waxyaabaha bulshada Soomaalidu ay ayadu leedahay sidaa darteed waxaan halkaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed inayan ogolaanin yacni rabitaankooda dareenkooda marka ay muujinayaan kuwa sida khaldan u turjuma inayan ku dhex dhuumin oo ay iska qabtaan waxaan uga mahad celinayaa bannaanbaxayaasha dhammaantood sida ay ii soo dhoweeyeen sida ay noo dhegaysteen iyo sida ay u qaateen talooyinkii iyo awaamirtii aan u soo jeedinay waan uga mahad celinaya intaas ayaa rabay inaan halkaan idhaahdo haddaba waxaan rabaa inaan hadalkeeda ku soo gunaanado dowladda Soomaaliyeed waxay u taagan tahay waa u qabadka dadka shacabka ee Soomaaliyeed uma taagna inay ayaga dhibaatayso qof dhib sameeyana wakiil kama aha dowladda iyo cid kale toona balse wuxuu wakiil ka yahay naftiisa oo kaliya dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an cid kasta oo bulshada khalad ka gala in cadaaladda la horgeeyo sidaas ayaan rabay inaan idhaahdo ummadda Soomaaliyeed inay hantidooda dhowrtaan dalkooda dhowrtaan shacabkooda ay u danqadaan danahooda ay u danqadaan ayaan rabay inaan halkaan ka soo jeediyo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku soo dhaweynayaa taliyaha booliska Soomaaliyeed oo isaguna bandowgii iyo waxyaabaha la halmaala arrintaas waxay ahayd dadka dayarta ah ay ka dhinteen labada ruux yacni maamulka gobolka Banaadir ayaa kafaalo qaadaya noloshooda haddii aan la idmo waxaa la ii sheegay gabadha dhimatay laba carruur oo aad u yaryar inay ka dhimatay wiilka weli faahfaahintiisu waa ay dhiman tahay laakiin qoyskaas labadaas qoys maamulka gobolka Banaadir ayaa kafaalo qaadaya noloshooda